salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walbo dunida ka joogtaan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey aynu ka helayna dalka Itoobiya. Ciidamada Tigreeg oo dib u qabsaday magaalo muhiim ah iyo isbedel lama filaan ah oo ku yimid dagaalka Itoobiya. Ciidamada Tigreeg ee Itoobiya ayaa maanta dib u qabsaday magaalada waqooyi ee Lalipela oo ay hay'adda UNESCO u aqoonsatay dhaxal adduun sida ay sheegeen dadka deegaanka. qabsashada Tigreega ayaa imaanaysa 11 maalmood kadib markii ciidamada federaalka Itoobiya ay sheegeen inay dib ula wareegeen magaalada. Warkan ayaa ka dhigan isbedel kale oo lama filaan ah oo ku yimid dagaalka ka socda Itoobiya oo toddobaadyadii tagay u muuqday mid ay dowladda guulo ka gaarayso kadib bilooyin aad loo jibiyay. Dagaalyahanada Tigreega waxa ay joogaan xarunta magaalada mana socdo wax dagaal ah. waxaa sidaas yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. way soo laabteen halkan ayay joogeen markii hore. waxaa sidaas yiri qof kale oo degan magaalada oo intaasi ku daray inay u muuqdeen inay ka yimaadeen dhinaca bari ee jihada Waldeya. inta badan shacabka magaalada cabsi ayaa haysa, qaarkood way ka cararayaan, kuwo badan ayaa ka baxaya magaalada iyagoo ka cabsi qaba in laga arguto. bayaan ka soo baxay hoggaanka militariga ee TPLF ayaa lagu sheegay inay weerar rogaal celisa oo dhowr jiha magaalada kaga soo qaadeen, gaar ahaan wadada xiriirisa Gashena iyo Lalipela. ciidamadeena markii hore way isdifaaceen kadib waxa ay ku qabsadeen weerar celis ka dhanna ciidamada huwanta ee soo weeraray jiida Gashena iyo aagga ku hareeraysan, waxayna gaareen guul xoogan ayaa lagu yiri bayaanka. Lalipela oo 645 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa xarun u ah 11 kaniisad oo qadiimi ah, waana goob ay u cibaado tagaan Kiristaanka Itoobiya oo sheegtay inay TPLF ka qabsatay wadda halbowle ah. ciidamada Itoobiya ayaa sheegay inay dagaal qaraar oo ay TPLF la galeen ay ku qabsadeen wadada halbowlaha ah ee isku xirta Waldeya iyo Maqale. warkan oo aan ka soo xiganay telefishinka dowladda EPC ayaa sheegay inay ciidamada dowladda dagaal maalmihii u dambeeyay ay la galeen TPLF oo ka socday jiidii hore ee bariga dalkaasi inay ku qabsadeen wadadaasi. sidaa oo kale ciidamada waxa ay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda ee Zoble iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Orjo, Fokiso iyo Boran. fallaagada TPLF dhankooda waxay dagaal qaraar u galeen sidii ay wadada Waldeya iyo Maqale isku xirta ay u difaacan lahaayeen si aan looga qabsan, balse ugu dambeyntii dagaalka looga awood roonaaday. wadada ay ciidamada Itoobiya sheegeen inay TPLF ka qabsadeen ayay ku sheegeen inay go'doominayso ciidamada fallaagada TPLF ee gudaha deegaanka Axmaarada ka dagaalamaya. saanadii ciidan iyo maleeshiyaadkii dhanka Maqale ugu imaan jirayna ay waayaan wadadii ay soo mari lahaayeen. ciidamada waxay intaa ku dareen jidda hore ee Wuchale inay ku qabsadeen deegaanada Robit, Golbo, Warapapo iyo Melekoticha. ciidamada Itoobiya oo maalmihii u dambeeyay guulo badan dagaalka ka soo hoyay waxa ay sheegeen inay hadda ku sii jeedaan deegaanka Marsa oo weli gacanta fallaagada TPLF ku jira. afhayeenka TPLF Getachew Reda wuxuu bartiisa Facebook ku soo qoray inay ciidamadooda u ruqaansadeen dhanka magaalada Gashana, isagoo intaa ku daray inay u eg tahay inay ciidamadooda meel istaajin karta aysan jirin ilaa ay cadowga ku dhawaaqaan dagaalka inay joojiyaan. isagoo fariintiisa ku soo afmeeray su'aal ah, isku day inaad ogaato halka xiga ay ciidamadooda ku istaagi doonaan. ciidamada dalka Itoobiya oo uu hogaaminayay Abiy Ahmed 2 toddobaadii u dambeeyay dagaalkii ay TPLF la galeen waxa ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo iyagoo magaalooyin badan oo ay TPLF qabsadeen dib ugu qabsaday. dagaalka waqooyiga Itoobiya ka bilowday 4 November 2020 ayaa qarxay kadib markii ay dowladda Itoobiya sheegtay saldhigga ugu weyn ee ciidamada dalkaasi oo ay ku lahaayeen magaalada Maqale inay weerar ku qabsadeen ciidamada daacadda waa TPLF. dagaalka xilligaas soo bilowday ayaa haatan 13 bilood jirsaday iyadoo ay weli muuqan wax xal ah oo laga gaaray colaadda dalkaasi ka aloosan. midowga Afrika waxa uu isku dayayaa inuu dhinacyada halka isku hayo uu kala dabqaado, balse ay weli dadaaladooda miri dhal noqonin.